dunidii wax inaga caawinaysa waa inoo imanaya marka xoogay wax hadayna caawiyaan inaguna wadanaheena iyo hawlaheena oo ku filanahay de mar hadayna nagu taalkuino maanta aan isku muuqatay aynaan haynin kama maarno inoo imanaya buuraha baa leeyahay ama buur ku tiirsana waa arrin aad u wanaagsan insha Allah leeyahay nimka waxa inoo imanaya qoladii inaga caawinaysa ina caawinaysa waa suweyn صح inoo yimaade way suweynaa wariyada iska warama way suweyni maanta waxaanu idinku nimi annagu hawlahayaga iyo maamulkayaga iyo dhalinahayaga iyo waddankayaga dee annagaa u tashanayno oo nidaamkiisa samaysanayna idinka waxaanu idinku nimi waxyaabaha inaad naga caawisaan wixii aana tari karaysaan inaad naga caawisaan oo aanu dad wax qabsanno maamulkayaga dhisano waanu isku raacsanay taa waa ku wada soconnaa dee saasaanu doonay inaan caawisano wax naga caawisano waa dal madax bannaan baanu nahay wixii aan naga caawinaysaan inaa gaarkayaga noo siisaan oo aad nagu taakulaysaan oo naga caawisaan horta anagu de mar walba in garab joognaa sax wax qabad iyo wax walba inaan ugu caawino baan ila dhinac joognaa ka waraday hadday saa tahayna horta dawladda waxa la yidhahdaa waa reer meel degay qoys qoys bay u eg tahay dawladdu waay qoyskii marka haddaan arigii la oodin oo geelii dhinac loo oodin oo loodii dhinac loo oodin dee baan ka soo dhacaya waraabaha cunaya waa dhab wey dhab hadalkaas waa dhab hadda ma garanaysaa reer meel degay oo kala tiin baad dawladdu waa nooca waa qoyska meesha degay aanu naqaanay waxaad leedahay reer meel degay meel degay marka inuu reerkaasi arigiisana gaar wataa geeliisana gaar loodiisana gaar waa si wanaagsan arrintiis hadda ma garanaysaa kadibna haddana waxaan naga caawinaynaa saddexdii waxyaaladood agabkii lagu dhisay guriga intaan u baahnaynba intaan u baahan waxyaalaha dambena waan la qaban doonaa insha Allah ilaa marka hadda saddexdaa horta baan miisnaa waa dee dhan tahayba saddexdii shay guriga lagu degayay ama xadkiida ku xidhanaysa ama meel walba waa sax wey cadow badan bay leedahay cadow badan bay leeyihiin cadow badan bay leedahay dawladuna cadow badan bay yeelataa cadow badan bay leedahay cadowgana haddaan iska eegin dee way naga xumaanaysaa bas wey mar haddii laynaga caawinayo waa intaan u baahnaynba annagu waa intaan u hawshaas way naga caawinaa wixii dambena waa naga caawin doonaa sax waaye haddeerna alaabtaasaan nii kala dhiibay waaye aad ku dhisan lahaydeen maamulkii wax ku qabsan lahaydeen waaye cadowgana iska ilaalin lahayd waaye sax wey diyaar baanu waa sidaa weeye haddaan nii dhibaya aye horta ninka waxaan u dhiibayaa taa sawirkaa baan u dhiibayaa sax adigu taasaad haynaysaa taasaan haynaya adiguna waxaad haynaysaa hangoolkaan haynaya dhinacna waxbaad kaga soo jiidanay dhinacna waxbaad iskaga riixay waa dhab waa ku kalsoona ninkan waxaan u dhiibayaa godintii oo miyaan saddexdu isku meel isku meel maaha saasaad u kala haysanaysaa waa runtiis saasaynu kala haysanaynaa saad inigu isku waadhow barnaamijkiina u dhisan laydeen inigii taalla markaan nigu caawimaynaa wixii dambena waa wada soconaynaa wax dambena waa nigu caawin doonaa markaa nin walba shaygiisa ha haysto saana maamulkiina ku wataya doorashooyinka markaa godintan sawirkeedu waa kaa goolkiina waa kano ninkan ahaynaya waana intii guriga lagu dhisayey dawladduna waa nooca dawladduna waa nooca waana intii guriga lagu dhisayey markaa saasana ku wada soconnaa wixii dambeeya waay okay waay
السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يال ما تعرف حين نسقون البرلمان كانوا ينور السياح. marka maanta waxa aan doonayaa inaan iska doorano hogaankii inuu hogaamin lahaa ma ila fahanteen yaa u diyaar doorasho diyaar baad u tahay waxa weeye waa rasuul sheegtayo waa sidaad sheegtay horta baarlamaanka waa inoo dhisay haraan loo doortay baarlamaankii waxa weeye maanta waa hogaamintii guud waa hogaamintii anigu waadiga yidhi horta maanta yaa u diyaara in badan baan anigu ku tashanayay ama aan ku caado qabay inaan hogaamiyo oo ninka meesha hogaaminaya aan noqdo wixii dee waxqabadna dee waa hogaanku waa waxqabad maanta anigu waxaan hayaa haddii ay doorataan in lay doortaabaan doonaya hangool baan hayaa hangoolkaasi laba fareere uu leeyaho waxbuu cadaajiyaa gadhna uu leeyaho waxbaa la soo surayo waa la soo jiida cadowgeenna waana naga riixaya oo wixiina wuxuu waana naga riixaya oo wixiina ugu foolxun waana naga fogeynaya wixiinoo wanaagsan ee harumara ee wanaagsanna dee waana noo soo jiidaya dee walaalayaal waxaan doonayaa markaa in aniga doorataan waa ku maqalay yaa kale u diyaara yaa diyaar u ah aniga kac waa sax inaynu hoggaan iska doorano mid inay hogaamiyaanada inuu wax qabtaa baa la doonaya caynka weyn aniga haddii ay horta waxaan anigu hayaa waxqabad godintii baan hayaa godinta aan hayo dee reerku dawladdu waa reer haddaanu ninku xerada oodanno xerada waxaraa oodanno bahalka iska adkaynin oo aanu dee godin haysanin waxba ma qaban karo dee hadday doorataan godintii baan hayaa waxii kadana waa ku darsanaya yaa kale u diyaara aniga hadal waan maqlayo dadka hore meesha ka sharaxan waa kuwa hadlay aniguna maanta waxaan doonayaa inaan wax qabto waan u taaganahay oo inaad doorataan waxaanan hayaa wax muhiima oo wax qabanaya waxaan hayaa sawirkii baan hayaa sawirkaa aan hayo waa taqaanoo reerku kama maarmo hadduu reerku sawir waayo maba dego guriba ma dego ma ooto waxaan ku yidhi sawirkii baan hayaa marka waxaa weeye haddaa maanta ay doorataan anigu sawirkaa waa hantidii reerka wey fadhiiso walaalayaal waa arkaysaan dee wixii meesha ka dhacay hoggaan baynu doonaynay 3 nin baa dee arkaysaan u taagay gacanta waan kala horraysiinayaa ninkaas sawirka sita wixii raacsan oo gacanta taaga ee dooranayo ninkaa gudinta sita ee waxqabadkiisa inoo sheegay wixii u codaynaya gacanta ha taagaan صعب أوقع walaalayaal inagu hadhay ninkii hangoolkiisa kuwa weliba hangool dheersi isagana wuxuu codaynayaa ha u taagaan gacanta waa dee lay codaynaya mee dadkayga waanu garannay iska dejiya gacanta walaalayaal soo maydaan arkaysay wax u dhaceen waxa weeyaan doorashadu siday u dhacday waynu aragnaa hoggaankiina waynu doorannay wuxuu noqday ninkaa gudimada sita isaga ayaa la isku raacay isaga hoggaankii inoo maanta laga bilaabo shirkina sidaasuu ku xidhan yahay hana la sii gelbiyo guddoomiyaha ما يستسوي كاجي هل هي حسيدي وسعيل كلمة حسيدي نقول كاجا سوي كاجا حسيدي أنا نقول كاجا مسيدي هنا سد سيدي استأمس إنكم بقى السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام وريالهن waa maxay laba arrin baan idinku yimi
naga nolotay ها naga soo doonto waxaan idin leeyahay marka ugu horeysa haye adduunyada arkaysan dawladaha ka dhisani waa dawlado dawlad aan dhaliil iyo xumaan lahayn ma jirto inagu gudaheena wax kasta aynu isniraahno aynu islayno aynu isqabsano war waxa wanaagsan inaad ka daysaan ceebteena cadowga u bandhigaysaan inaad ka daysaan ma wanaagsanta oo wadan aan xumaan lahayn ma jiro wadan waliba war wadan ina tuso xumaantiisa ma aragteen maxay inaga xumaanteeni banaan ka dhigay marka waxaad leedahay qariya oo maxaanu ku qarinaynaa maxaanu ku qarinaynaa qariya ku qarin mayna anagu saasaanu ku sheegayna bal ma hadnoqotid loo hayna laaxin ka dhimo ha ku sheekayn sidaas baanu kula daba taagnaanayna hanaga sinta waxaan kaloo idin leeyahay wadankan wax qabad buu u baahan yahay wax qabad ku u baahan yahay wixii anagu aanu qaban karayna waanu qabanay wixii wax wadanka loogu qaban lahaa kala barba agabkiisii haysaan adigu sawirkii baad haysaa waxaan ku oran lahaa sawirka keen godintan ay leedahay wadanka wax loogu qabtay oo marka sawirkaygan ku dhiibaa adiga keen diiwaana keeni war adigu bal hangoolka kan oodaha aanu deel dadkii la wuxuu u baahan yahay wax loogu qabtay wixii aanu qaban karayna qabanay bal keen hangoolkan wuxuu la maqan yahay wax ku qabanay wax ma ku sheegnaa waata dadka wax baan u qabanaya gudin baan sitaay adeer dawal amarag baan ku niri gacantaada geli gacantaada geli adeer kala dhagaysale gacantaada geli oo dabeetana war bay idin sheega ka soco inantii heestay waxay tidhi adaa kala riday reerkeeni dhisnay intaan rukumada harujin ku lahaa war ma ka daysaan ruuqa waxay ruqayaa ka socaade taada ku cayu almaraar lagu dhigo gow ha soo dhow anagu taanoolay qiyaamo bisley leen ka horeyna mooda wariya wuxuu yiri maqlay waxa soo leeyahay uu ku deeyaa war anagu ba kuleey maradin labadeen wada soconay war waxaan ku yiri mahmahba holu jirtay haye oran jirtay Soomaaliyeed wale reer anagu ma guuro intaan ka hayo dee waa kaanu kula doonaynaa wariya mama kala oranaysa boomurush marush maxkunug maxaysa ka nuug maxaabay ka nuug dee waa hawshiisa hawato war waa inoo sida waa saasay inoo inagu baa wada socon ka bax xagga hawsha halkii ka wada halkii ma ka waday bas ina mariba shirshiraad baan qabanaa daan doonaa walaalayaal haddaa ii doorateen dee inaan wax qabto anigu waxaan hayay godintii wuxuuna ma kala maarmo nimanka haya sawirka haya iyo ninka hangoolka haya dee ha soo wareejiyeen saan wax u qabanno ilaa haddii kale godin khali wax lagu ninka hadduu sawir meel isla taago ninka hangoolkii meel isla taago dee reerkii la oodi kari maayo waxaan leeyahay dee ha la soo wareejiyo ha lala kaalayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا ليال ورسدا وشيغال horta maalintii hore waa tan doorashada galay annaga waa tiin laga helay iyo laga shubay waa tiin laga helay ninka sawirka ninka gudita haya iyo annaga la soo bixisan hangooladeeda waxyaga aanu soo shaqaysanay aanu eeganay dee waa kila waxba qabanaya dee guditiisa waxa ku qabta haduu wax ku qabanaya hadii kala dee magaalada kala walaalayaal hangoolkayga waanu haysanay isagana u dhiibi maynay doorashada ku doonayna walaalayaal wasada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان dadweynaha waxaan idin sheegayaa walaalayaal anigu waxaan hayaa sawirkii ninkii aad doorateena wuxuu hayaa gudintii haddaba iyo annaga gudintaydan sawirka inaan haysto yuu soo eegan isaga gudintii haya wixii uu qabanaya dalkan uu qabanayo ha u qabto aniguna taydan ayaan haysanaya waxba ii soo bixisan anigu kanaan hayaa oo laygu og yahay waan haynayaa isaguna gudintiisa wuxuu ku qabanaya ku qabto wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadweynuhu waa dhudda dhammaantood waa walaal dhibaatana may dhex ool dhib bay soo wada muteen dhankiina lagaga yimi siyaasadda dheelidaa intay dhagar geysato ayay haddana dhigjoojinta iyadu dhaymaha sitaa dadkuna waa dhoohan yahay dhabbaa xilka loo maro iyo iyagu dhangaday noqdeen ninkii dhacayaa cuskada dhallaankuu fuqinayaa dhegtuu wuxu saarayaa dhadhaabay guranayaa waxay xidhayaan dhabbaha qof baa loo dhimanayaa isugu dhiib baad taqaan malaa isu soo dhowayn adiga cidi kuuma dhigin siyaasiga dhiiranow adaa bulshada isla dhaca dhardhaarradu wadajirkay dheryaa ku bislaynayeen haddaad midba meel dhigteen sidaad deef uga rabtaan
ilaashada nabadda iyo barwaaqada oo yaan bacadka loo qumi maatida iyo barbaarto nin dalniina baabi بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u sheegayaa halkan baarlamaanka inaynu maanta iskugu nimid xildhibaanado dhan dhammaanteen hawlo badan aynu lahayn oo aynu doonayn in laga wada hadlo maanta inaynu isu sheegno marka waxa weeyaan waxaynu imika u jeednaa oo doonaynaa inaynu imika bilaabanno waxaa inoo yaalla waddanka dee maanta waxyaabo fara badan السلام عليكم calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu والله دي هوله waa ku jirtiin haa waxaad tihiin golihii sharci dejinta waa run waddankuna dee maanta hawlo badan buu u baahan yahay waan garanay waddanku maanta wuxuu u baahan yahay wax la qabto waan garanay in qof kastaaba oo muwaadinimo dhinaciisa wax u qabto haddaan la helin dee waddankii waxba qabsoomi maayaan waa run haddaan wax la isla qabanno midba meel wax isla taagano dee waddankii waxba ka qabya noqonayo waa dhab waxaan leenahay dad baa jira agabkii lagu shaqayn lahaa in qofba meel isla taago ma aha in meel la isugu soo wada wareejiyo oo ansixisaan taa oo ka doodaan dee la golihii sharci dejintaa tihiin waddankii in sidii wax ugu qabsoomi lahayn waa sidaa dee taasaan idinku ina ansixisaan waa sax adeer hawsha annaga noo taallaa haddaan nahay golihii sharci dejinta annaga imika noo taallaa annagaana ka wada hadlayna wadna wadnaga fasaxantaada waan soo gaarsiiyay anigu waa la maanta annaga hawsha ka hadlayna waryaare waar Soomaalidu maqlayn odayga ha inoogu yimid maanta waxa weeyaan dee hawl weyn baa inoo taalla waxaa loo baahan yahay maanta inaynu innaga tiina inta horta iska dhigno inaynu hawshaa wax ka qabanno iminka aynu ku kacno si fiican hawshaasi waa hawl dee muhiim ah inoo sheegay ninka odayga inoo yimi laakiin mid baa ka horeysa maxaa ka horeeya waxaa ka horeeya dawladda ina caawiya uma mahadnaqno waxaynu u baahan inaynu mahadnaqno oo aynu ku nidhaahno very good oo aynu ansixino waxa weeye waa arrin wanaagsan waan garan ninkan tuu soo inaynu very good nidhaahno inooma habboona waa inaynu farana isnaxno oran maayo waxaa la oranayaa horta waxaan soo jeedina maxaad hor timaadaan
خبير بي وباهتهاي وكان اسكت بارديو اسمي دولة بيربتا أمتو ويتالنتهاي أمتو ويتالنتهاي دقنان هشيو دكسيو نبت بيربتا دقالا دريالا إنا مامون داتي يربتا دقر ما صديو كرمت دقدق يربتا أمتو ويتالنتهاي أمتو ويتالنتهاي إني دقنان هشيو دكسيو نبت بيربتا دقالا دريالا إنا